بسم الله الرحمن الرحيم waxaan doonayaa maanta inaan halkan uga gudbiyo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhibaatada baaxadda weyn leh ee abaaraha ah ee aan 60 sano la soo dhaafay sida ka warqabtaan Soomaaliya waxa ku habsatay abaar aad u baaxad weyn oo dishay ilaa hadda caruurta markii kaliya qiyaaso 29,000 intii 9 bilood la soo dhaafay taasoo waxay tilmaan u tahay dhibaatada Soomaaliya haysta ama ku habsatay 20 sano waxaan la indhaha laga qarsan karin dacdarrada dhimashada gaajada dadka Soomaaliyeed meel kasta ha joogaan ha u badnaadaan dadka degan South Somalia inta u dhaxaysa gobolada Gado Jubbooyinka Bay iyo Shabeellooyinka inta u dhaxaysa iyo magaalada Muqdisho ah harunta kabitaalaha ama harunta Soomaaliya waxa ku dhimanaya maalin badad marka la aragto sawirada amaba filmada laga soo duubeyna waxa way calool xumo iyo dhibaato ya qof kasta oo Soomaali meel uu joogaba uu la kulmaya waxaan rabaa marka inaan halkan ka cadeeyo ummadda Soomaaliyeed waxay ku amaanan yihiin meel kasta oo joogaan sida ay ugu gurmadeen walaalahood oo dhibaataysan ayagoon u eegayn ama regionka ay degan yihiin ama meesha ay ka yimaadeen taasoo waxay tilmaan u tahay dhaqanka Soomaaliyeed oo ahaan jiray dadka Soomaaliyeed dad walaalaha yihiin waxaan kala qaybiskaan iyo hadda dhibaatada dhacday 20 sanana inay tahay waxa keenay dhibaatada maanta haysata inay baaxadda sawaad kaato markaan taa ka dib waxa weeye dhibaatada runta in la soo sheego weeye ummadda Soomaaliyeed waxaad moodaa inaanu kala leexanayno runtu waxa weeye dawladda Soomaaliyeed oo qaran ah oo dhibaatada Soomaaliya ka saari karta dalka kama jirto waa inaan runta sheegnaa adduun weynaha dalalka horumaray sida Mareykanka reer galbeedka dalalka ama Western European ka leedahay ama dalalka Islaamka ama Carabta ama Afrikaba wax dan ah oo ay Soomaaliya ka leeyihiin lama arko sababtoo ah dadku hadina iyagu dan iska lahayn qola kale oo dan ka yeelanaysa ma jirto inkastoo adduunku macaawinana siiyay oo ku mahadsan waxayna tareen haddana waxa loo baahan yahay annagu inaanu iska qabanno inaanu runta isu sheegno inaanu xaqiiqsano war meesha dawlad kuma hayne maxaanu dooninaa dal Soomaali lunay way ummadii baabaaday maxaa noo inaan lahaw waxaan markaan rabaa inaan xaqiijiyo in Soomaali looga taliyo meesha la yiraahdo Kampala iyo Addis Ababa iyo nin la yiraahdo Muhiga oo UN ka socda protocol office inuu amar siiyo Soomaali oo noqdo ninka xukuma Soomaali run ahaantii nimankan hadda la waa madaxweyne iyo baarlamaan iyo prime minister waxba dalka kama hayo waxna ma xukumaan xaqiiqada jirta waxa weeye in la soo sheego mudan war Soomaaliya lunay waa inaanu soo ceshna qarannimadanadi waa inaanu soo ceshna sharaftanadi waa inaanu soo ceshna gobonnimadanadi abaartaanu ilaahay baa keenay abaarta way dhacaysaa laakiin abaarta waxa dhibaatada balaarinaya dawlad la'aanta ma jirto dawlad Soomaaliyeed oo xanaaneyn karta ama se wax ka qaban karta dadka tabaalaysan ee Soomaalida ma jirto dawlad Soomaaliyeed oo xajin karta ama ilaalin karta qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ma jirto dawlad Soomaaliyeed oo xukunta dalka guud ahaan nimanka hadda la leeyahay dawlad way u shariif madaxda ka yahay waxay ku xayndaaban yihiin ama ku xireen madaxtooyada yaagooda waxa waardiyeeya oo ilaaliya niman dhalinyaro ah oo askar oo laga keenay Uganda iyo Burundi dawlad saas lagu ma noqdo lama oran karo waa dawlad waxa lagu noqdaa marka askariga ku ilaaliyo adag yahay marka ninka xuduudka ilaalin uu yahay muwaadin Soomaaliyeed marka uu yahay ninka adiga ku security-ga nin Soomaaliyeed sida warku nagu soo gaarahay waxa ilaaliya oo waardiyeeya oo baabuurka u wada hatta Soomaalida lagu maaminayo waxaas waxa weeye waa ihaano sharaf dhac waxay ku tahay qarannimada Soomaaliyeed nimankan baarlamaanka lagu sheegayo ee ka kooban labada kooxood koox Ethiopia ka timid iyo koox wada sheeganaysa wax daran Soomaali u hayaan haba yaraatay 550 weeye dalkan Mareykanka joogno oo intaas 300 milyan 550 malaha dibtaati taas waxay ku tusaysaa macna darrada ka socota Soomaaliya taas waxay ku tusaysaa dhibaatada maanta Soomaaliya haysta oo UN-ku ama qaramada midoobay ay ku qiyaaseen in 750,000 oo qof oo Soomaaliya laga yaabo inay gaasho u dhimato 3 bilood soo socota waxa dawladdu waa nimanka danka hadlay marka waxaanu u baahannahay dadka Soomaaliyeed ee wax garanaya ee dibadda jooga intaan iska dhigno qabiilka iyo huuhaada iyo waxaan jirmaan iska dhigno waa inaanu niraah waa bes way waanu enough is enough ونسون معنا
oon adduunka u sheegno inaan dowlad soomaaliyeed jirin oon adduunka u sheegno in waxaanu ayna dowlad ahayn ay cay ku tahay nasriyadda iyo sharafta soomaaliyeed inay dabandaabo ku tahay jiritaanka qarannimada soomaaliyeed in soomaaliya gacanta loo geliyey siiba dowladaha maraykanka dowladda maraykanka iyo reer galbeedkaba siyaasadooda kuwa jiraan soomaaliya in gacanta loo geliyay ethiopia in gacanta loo geliyay uganda in gacanta loo geliyay mahiga maanta soomaaliya waxaa ka taliya mahiga sidii markuu talyaanigu dalka haystay ama ingiriisku waqooyi galbeed haystay sida nimanka governorska oo kale waxaa governor maanta soomaaliya ka ah oo xukuma siyaasadeeda iyo meesha u socoto ninka la yidhaha mahiga oo tanzanian ah oo safiir ah taasu waxay dabandaabiye ku tahay yaacab ummadda soomaaliyeed wixii ka dhacay uganda waad maqasheen intabid in dowlad uganda la yidhaaho ay tiraho annagaa qaadayna mas-uuliyadda in la fuliyo go-aamada uganda oo iyadoo noo cayinto ninkii madaxweyne noqon lahaa oo iyadoo noo cayinto ninkii prime minister noqon lahaa oo iyadoo noo cayinto waktiga loogu dari lahaa dowladda kumeelgaarka dowladda ethiopia dowladda uganda inay cayinto museveni inuu cayimo waxay sharaf darro ku tahay qarannimada soomaaliyeed marka intaan haada iyo walhaw ka baxno annagoo soomaali ah waa garadka soomaaliyeed dadka waliba dhalinyarada la hadlaya dadka dhalinyarada ee soomaaliyeed meel kasta ha joogaan jaamacada dhigta dalka wuxuu u baahan yahay oo u ooyahay waa idinka waa inaad u kacdaan dalka wax garadka waa inuu kacaa dadka diaspora waa inuu kacaan waa inaanu helaa inaanu ka baxnaa dhibaatada waxaanu kusoo xerayo waa sahlan tahay in dhibaatada la tilmaamo waxaa aada u adag in xal la helo xalku waxaa weeye adduun weynaha sida security councilka dalalka adduunka u taliya waa inaan runta u sheegno annaga dowlad ma haysano baarlamaanna ma jiro soomaaliya waxaa hadda jira xal ma aha dowladda hadda jirtaa dowlad soomaali wax u qaban karta ma aha sidaa awgeed ummadda soomaaliyeed waxaan kula talinhayaa saan hore u sheegay siiba dhalinyarada inay istaagaan kacdoonna suubiyaan kacdoon ah in soomaaliya dib dhibaatadii ku jirta laga saaro waxaa waddanka dhibaato ka saara waa dadka waxa u bartay siiba dhalinyaradiisa waxaanu aad iyo aad iyo aad ugu adkeynaa dhalinyarada soomaaliyeed oon ahmiyad weyn u qabo inay maanta gartaan dhibaatada soomaaliya haysta dadka ka saari kara waa iyaga oo ka koray qabiilka oo ka koray kooxaysiga oo ka koray gobolaysiga yaan aad iyo aad baan yaan ugu adkeynayaa adduun weynaha siiba qaramada midoobay golaha ammaanka waxaan u sheegayaa dad soomaaliyeed badan waan filaya in arrinta ay la qabaan in dhibaatada soomaaliya ay ku jirto aan looga bixi karin sida hadda socota oo ah in dowlad baana maalin walba naloo soo dhoodhoobo oo nala yidhaha dowlad baa jirta dad aan dowlad waxba ka garanayn aqoonteedna lahayn in dalka ay xukumaan dalal soomaaliya weligoodba doonaya taariikhiyan inay helaan soomaaliya u qaran dalkaas waxaa u horaya ethiopia waxaan aada uga xubnahay in adduunku nagu maaweeliyo dowlad baa idin jirta oo waxay taraysa waanu ognahay lacagaha adduunka ay bixiyaan waa 850 milyan oo dollar lacagtaas ma soo dhaafta Nairobi dadka Soomaaliyeed aad arkaysaan masawirada ku arkaysaan oo tabaaraysana lama siiyo waxa lagu cunaa hoteelada waxaa qaybsada hay'adaha samafalka nimanka isku tilmaamaya oo magaca Soomaaliyeed ku soo qaata lacagta oo soo qaata dowladooda iyo maamulkan uu madaxda ka Shariif oo ah dad musuqmaasuqa oo corrupted ah sida awgeed adduunka waxaan u sheegaynaa Soomaaliya dhibaatada ay ku jirto waxa looga bixi karaa in runta la isu sheego adduunkuna runta uusan ka laxleexan waxaan kusoo xirahayaa waxaan u baahanahay dowlad Soomaaliyeed oo ay go-aankeedu leedahay ummadda Soomaaliyeed waa in dadka gobolada degan la weydiiyaa gobol walba in la weydiiyo waa dadka mas-uulka u noqon lahaa dadkaa la isu keenaa waxay afka gaalada lagu yidhaha Constituent Assembly ama dad laga soo xuray gobolada oo wakiil runa ka ah dadka Soomaaliyeed dadkaas markaa inay doortaan madaxweyne kadibna markaa dowlad saa loo doorto dowladdaasna markii la doorto waqti aan aada u fogeyn ama sanad aan ka badnayn waa in la helaa in la diyaariyo dastuur ummadda Soomaaliyeed ay ku qanci karto oo markaas ummadda Soomaaliyeed la weydiiyaa afti laga qaadaa rabitaankooda dadka laga soo xulay goboladana waa inayna ka badan 170 ilaa 270 ma aha 550 parliamentarian ama mudanayaal ah waxay Soomaaliya u qabanayaan lama arko marka waxaan ku soo gunaanadahayaa ummadda Soomaaliyeed mar labaan waxaan ku boorinayaa uga mahadcelinayaa kulligeenba inaan wixii la tari karo waxay hadda tareen waxaan adduunka sidoo kale uga mahadcelinayaa waxay ummadda Soomaaliyeed tabaalaysan siba abaaraha ay tareen laakiin xalku waxaan horaan u aragnay haddaan dowlad wax ku oolan la helin abaartu way dhaci
gaajadu way dhaci sababtoo ah abaarta ilaahay baa keena laakiin dhibaatada waxaa sii hurinahaya waa dagaalka sokeeye ee joogtada ah ee 20 sano socday inaan arrintaa ka baxno arrinta waxaan uga bixi karnaa Soomaaliya inay istaagto way Soomaaliya inay gacanta isqabsato way Soomaaliya inay iska dayso way qabiilka meelaha aan lahayn iyo goboleysiga iyo wahada waana maasantiin